saddexdii bishan July ayaa waxa lagu qabtay magaalada Den Haag ee xarunta dalka Netherland munaasabad aad u ballaaran oo lagu xuseeyay konton guuradii ka soo wareegatay markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay isla markaasna ay midoobeen gobolada waqooyi ee koonfurta Soomaaliya oo ay kala gumaysan jireen gumaystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriiska munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen Soomaali far badan oo ka kala yimiday dhammaan gobolada dalka Netherland ayaa waxa soo abaabulay ururada Soomaalida ee ka jira dalka Netherland oo kala ah ururka Dalmar Foundation ururka Karti iyo ururka kale ee lagu magacaabo Hirda xafladan oo ay Soomaalidii ka soo qayb gashay ay ka muuqatay wajiyadooda farxad iyo reyn aad u ballaaran ayaa waxa dadkii ka hadlay kamid ahaa Mr. Asad Maxamed oo ka socday ururka Dalmar Foundation aniga ku hadlaya magaciina iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Holland waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maalintan daraadeed walaalayaal waxaan ognahay in dadka Soomaaliyeed intooda badan maanta dhibaato ay ku jiraan kuwa maalin walba qaxaya kuwa leh ma bari baad qaxaysaa kuwa bilaa micno u dhimanayo saacadan hadda aan hadlayno kuwa gaajo darteed la macluusan kuwa ka buuxa xabsiyo dalal shisheeye iyagoo naftoodii ilmahooda la cararayo sidaa daraadeed waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu dhibaatada naga saaro wadankeena nabad iyo barwaaqana nooga dhigo haddaan rabno inaan dib u soo celino sharafteena iyo dadnimadeena oo aan noqono dad meel degan oo ka adag noloshooda sharaf leh xiriir fiican leh dadka adduunyada ku nool waxa laga maarmaara inaan dib u soo ceshano qarannimadii dinta of course wadankii wuu dumay laakiin ma iska fadhino meesha marka aadna sharaf iyo waxba ma helaysid laakiin taa haddaad rabtid waa inaan u dagaalgalnaa wartiisa ku soo celinaynaa waay marka ma dhacday waay aswaa'il hadayna sameyn lahayn ka waran waa waqti Soomaaliya hadii markuu gumaysiisa waxa ugu hore waa daraawiish iyo aswaa'il haddaba aswaa'il say ku soo celisay 13 dhalinyaro Soomaaliya ayaa bilaabay fiiri just un maalin bay shireen way bilaabeen maxay marka muxuuha waxa ay ku walaaloobeen oo isku hayay walaalayaal waxa isku hayay Soomaalnimo ma in qabiil iyo gobolkaas aan ka imaaday kastiga fishinka ugu weyn wuxuu ahaa Soomaali iyo aragti kale oo ka dhaxaysay oo ahayd in ummad Soomaaliyeed la dhiso ummadaasna ma dhismanaysa haddaan qaran Soomaaliyeed leelin sida daraadeedna gumaysiga laga saaro qaas waa fishinka ugu weyn waxa Ingiriiska lagu yiraahdo equal opportunity freedom and justice for all Somalis kiri waxa walaaleeyay waa intaas waay that's why they guush u gaareen maahin aniga saanay ana madax rabayo ana gudoomiye rabiya maahin just that vision ayaa walaaleeyay walaalayaal haddaan rabno marka sharafta inaan soo celino qof walbo Soomaaliya dad badan waxay leeyihiin nabad aan helno maybe 95 annaga dhanbo nabadda waan ka soo horjeednaa isma weydiino marka qof walbo Soomaaliya waa inuu muraayada isku fiiriyaa muraayada intuu horta isku fiiriyaa oo dhahay waraahda aan dhahayo ficilka aan sameeynayo cidaan taageerayo ma soo celinaysaa Republic of Somalia يعني هذا تاس سمينين وحبنا مش شيء يسدي بلكن نلاش individual بيكبر لعبا هذا individual كل اسمه كمل كذا كذا دعي صاحبه ده نقول يضبط كذا دعين كرتا واحد ده ما تقان استيتكو وواحد ضد واحد جواي واحد السمين ما دعي كرتو marka hadaan taarabna walaalayaal inaan dhisno qof walba Soomaaliya ayaa waajib saaraya Ilaahay waxaan ka baryaa in wadankeena sanadkiisa dambe nabad ka dhigo Ilaahayna Soomaaliya ha barakeeyo waa nafsiga waxaa iyadana halkaas khudbad kooban ka soo jeedisay Marwo Faadumo Faarax oo ka socotay ururka Hirda
oo ka mid ah ururada soo abaabulay xafladda. waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo macnaha soo tigiisay waxaan leeyahay organisationadii soo maqaariyaan laakiin dhalinyarada gacanta saareen ayaga ha qaateen hogaaminta ayaga ha organisaareen waa ujeedaan ka sameeyeen marka waxaan rajaynayaa in dhalinyarada waqti inay imaadaan inay qabsadaan iyaga hawsha qabtaan waa ujeedaa inay bilaabatay dhalinyarada inay ku soo xirmaan organisationadaas oo adinka qabataan hawlahaani aad iyo aad u mahadsantihiin macnaha bilow inay noqoto halkaani inay noqoto bilow inay organisationada Soomaaliyeed wada shaqeeyaan inay dadka Soomaaliyeed isku yimaadaan waxaa mar walba afkeena aadaan saamul saamister wanadala waxaan ku dhahayo laakiin markaan isku imaano wax weyn aan qabsan karnaa inta keli taaganahay waxba lama qaban karo marka waxaan rajaynayaa inaan mustaqbalka wada shaqeyn doono mustaqbalka aan ka shaqeyn doono inaan Soomaaliya macnaha qabsideeda iyo halkaan aan wada joognaba intii lagu guda jiray barnaamijka xafladda ayaa sidoo kale waxaa halkaas lagu soo bandhigay dood ay Soomaalida ka soo qayb gashay xafladda ay isku weydaarsanayeen iyadoo mawduucyada laga dooday ay ka mid ahaayeen bal sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada ka jirta Soomaaliya oo 50 sano kadib xornimadooda ay nasiib darro tahay in ay ku jiraan dagaallo iyo dhibaatooyin aan dhammaad lahayn. waa tan qayb ka mid ah dooda oo looga doodayay lacagaha Soomaaliya loo diro oo ay diraan dadka dibadda ku nool sida ay u arkaan ka soo qaybgalayaasha xafladda. Ruqiya Cadow oo ka hadlaysa in la iska dhaafo qarashka ay dadka dibadda jooga ay u diraan Soomaaliya waa tana dadka aan lacag loo diro dadka lacag loo diro waxa dadaal badan oo wax qabsado dadka aan loo diro sababta ay tahay xoogooda ku tusay ka loo diro telefoon oo aan shaqo أي شيء هو على كندا عندك ليزلا عندك سعود عربية عندك تأخذ شغل يسكون واحد كيف ناضي جاي ومرقين على المال واحد كيف ناضي جاي وأسكو حلين فكرت الشحات واحد كيف ناضي جاي معناها شكل عام حتى نروح إلى الجو كذا معه ونشغل سوا وإلى شيء العالم حتى لو كنت عندي جوين تيجي على على القصان شوفوا الحمامة طلعوا على غير ولا ولا تعبوا waxa uu jawaabtay Shamsa Cabdulla Butubey oo difaacday in la sii wado qarashka ay u diraan qurba joogta Soomaalida waxaana hadaladeeda kamid ahay haddii la iskuul ay waqti jiray qalbiga dadka aniga ugu dambeeyay dadkii iyo wadankii 20 sano ka baxay wada hatta noqon la dirin oo si badan ayaa baahan u dhimaay meel laga shaqeysano meel noqono iskuulada ay galeen aniga ilmahay wada iskuul ka dhigay ma salaada qasabay u taagnaatay marka Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay oo ku baahan xalaqada ilaahay wada daali lacagaha jaas baraha laga diray waxaan qabaa qoys boqol oo dad ilaa wada